بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Bio Academy. kusoo dhawaada Bio Academy adigu barateen adduunka scientifica afarta fasal ee dugsiga sare. Page-ka la share gareeyo, subscribe hala saaro. Page-ku waa page-keeni insha Allah ta'ala ka faa'iideysan doontaan. Biology form 4 ayaan ku jirnaa wali. maanta waxaan bilaabaynaa insha Allah ta'ala casharkeena saddexaad. magaca waa Salmaan Cagayare. Structure of nervous system ayuu maanta casharkeena ka bilaabanaa casharkeena saddexaad. casharkeena koobaad waxaan ugu soo hadalnay introduction to nervous system. casharkeena labaad waxaan ugu soo hadalnay nerves waxa la yiraahdo iyo waxa lagu magacaabo nerve impulse. waxaan kaloo ugu soo hadalnay resistance potential iyo action potential oo kala ahaa markuu neuronku shaqo qabanayo fariin la gudbinayo iyo markuusan fariin gudbinaynin. markuu fariin gudbinayo waxa loo yaqaan waa action potential, markuusan fariin gudbinaynin waxa la yiraahdaa waa resistance potential. sidaa darteed waxaan kala ka soo hadalnay waxa lagu magacaabo synapse oo ah space-ka u dhaxeeya laba neuron oo daris ah. waxaa kaloo aan ka soo hadalnay neurotransmitters oo ah chemicals-ka qayb ka qaata in fariintu ay gudubto oo aan soo sheegnay saddexda qayb ugu waaweyn ee chemicals ugu caansan. chemicalooyin badan waaye laakiin saddex ayaa ugu caansan. saddexdan waxay kala ahaayeen GABA aminobutyric acid iyo waxa lagu magacaabo acetylcholine iyo lambar 3 oo ahaa dopamine. halkaas inoo joogto casharkeena labaad. maanta casharkeena saddexaad waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah ta'ala haddii alla yiraahdo structure of the nervous system, qaab dhismeedka habdhiska dareenwadka. qaab dhismeedka habdhiska dareenwadka ayuu maanta casharkeena ka bilaabanaa. casharkeena aan goli gelin ka hor structure of nervous system marka la yiraahdo qaab dhismeedka uu sameeyay nervous system-ka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah central nervous system iyo peripheral nervous system ayaa loo qaybiyaa. central nervous system iyo peripheral nervous system. central nervous system maxay tahay marka waa habdhiska dareenwadka ee dhexe. peripheral nervous system waxa la yiraahdaa waa habdhiska dareenwadka ee dhinacyada ah. peripheral means waa letters dhinacyada waaye, central waa bartamaha. jirka bini'aadamka marka la fiiriyo marka loo qaybiyo laba qaybood oo bartamaha laga qaybiyo ama laba loo qaybiyo ayaa laga fiiriyaa waxa lagu magacaabo structure of nervous system. marka la yiraahdo central nervous system waxay noqonayaan inta bartamaha ku aadan sida madaxa waxa lagu magacaabo laf sakaarta oo loo yaqaan sternum iyo vertebral column oo ah laf dhabarta. intaas ayaa center u noqonaya. waxaa kaloo dhinacyo noqonaya waxa la yiraahdo peripheral nervous system ayana waxa la yiraahdaa waa adimaha sare iyo adimaha hoose oo ah labada gacmood iyo labada lugood. kuwaas ayana waxay noqonayaan waxa lagu magacaabo peripheral nervous system habdhiska dareenwadka ee dhinacyada ah. markay maxaa yeelay labada gacmood waxay jiraan dhinacyada marka maskaxda iyo madaxa iyo waxa lagu magacaabo sternum ama laf sakaarta lafta xabadkana bartamaha ay ku jiraan marka loo fiiriyo marka. okay, the nervous system habdhiska dareenwadka consists of wuxuu ka kooban yahay two major divisions, laba qayb waaweyn oo ka kooban yahay lambar 1 oo kala ah central nervous system oo loo soo gaabiyo CNS oo ah habdhiska dareenwadka ee bartamaha ah iyo lambar 2 oo ah peripheral nervous system oo ah habdhiska dareenwadka ee dhinacyada ah oo si loo soo gaabiyo BNS. CNS means waa central nervous system, BNS na waa peripheral nervous system. okay, the brain marka maskaxda and spinal cord iyo xangulaha make up waa kuwa ka samaysan ama sameeya the central nervous system habdhiska dareenwadka ee bartamaha ah. marka yaa ah central nervous system waxa ah brainka oo maskaxda ah iyo laf dhabarta xangulaha spinal cord ayaa waxa loo yaqaanaa central nervous system. the peripheral nervous system habdhiska dareenwadka ee dhinacyada ahna consist of wuxuu ka kooban yahay the sensory neuron fariin qaadayaal and motor neuron iyo fariin socodiyaal that carry information kuwaas warbixinta geeya to brain maskaxda geeya and from kana soo qaada the CNS macnaha maskaxda geeyaan wayna ka soo qaadayaan respectively si isxigxigta ama sidoo kala horeeya. marka si fiir ayaa lagu yiri sawirka 1.7 fiiri sawirku waa kana waa jirka bini'aadamka u jeedid in ka soo shooca oo noogu furan yahay. marka aad fiirisid madaxi waa kan lafdhaan hawl af sakaarta ama lafta xabadka matana laf dhabarta way ka dambaysaa. markay intaan dhax marka maskaxda ilaa iyo laf dhabarta iyo lafta xabadka soo maray ilaa iyo halka keen waxa loo yaqaanaa central nervous system. peripheral nervous system yaa markay peripheral nervous system falaarta raac waa gacmaha iyo lugaha dareenwadaasha ku jira ayaa loo yaqaanaa.
dareemayaasha gacmaha ay leedahay gacantu ay leedahay labada gacmood ay leeyihiin gacantan iyo gacantan kale ay leeyihiin iyo dareemayaasha lugaha ay leeyihiin lugtan iyo lugtan ayaa waxa loo yaqaanaa peripheral nervous system ayaa loo yaqaanaa marka peripheral nervous system. Okay, nervous system waxaa la yiri halkan waxaan kusoo muujinaynaa insha Allah taala flowchart sawir muujinayo types uu leeyahay ama loo qaybiyo nervous systemka. Nervous systemka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah central nervous system iyo peripheral nervous system. Centralka wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo ah brain maskaxda and spinal cord iyo xangulaha. Peripheralkuna wuxuu ka kooban yahay asigana peripheralkuna wuxuu ka kooban yahay autonomic nervous iyo waxa lagu magacaabo somatic nervous oo ka kooban yahay autonomic nervous iyo somatic nervous oo ka kooban yahay. Autonomic nervous maxaa yiraahdaa markuu yahay autonomic nervous waxaa la yiraahdaa waa neerfayaasha aan la xukumi karin involuntary nervous la yaqaana. Somatic nervous maxaa yiraahdaa waa kuwa la xukumi karo marka. Okay, autonomic marka wuxuu kala baxaa waxa lagu magacaabo laba qaybood oo kala ah sympathetic nervous system iyo parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system waxaa la yiraahdaa marka waa habdhiska dareenwadka ah ee emergency ah degdega ah kana muxuu yahay parasympathetic waa habdhiska dareenwadka ah ee emergency aan ahayn oo markuu jirka rastin ku jiro ayuu shaqeeyaa kana wuxuu shaqeeyaa marka jirka uu halis ama degdeg uu ku jiro marka. Okay, somatic nervous system wuxuu qaybsamaa laba qaybood oo kala ah sensory neurons iyo motor neurons ayuu qaybsamaa marka. Okay, central nervous system waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah central nervous system iyo peripheral nervous system. Peripheral nervous system wuxuu kala baxaa laba qaybood oo kala brain maskaxda and spinal cord iyo xangulaha. Peripheralkuna autonomic nervous system iyo somatic nervous system. Autonomic wuxuu kala baxaa sympathetic nervous system iyo parasympathetic nervous system. Somatic wuxuu kala baxaa waxa lagu magacaabo sensory neuron iyo motor neurons marka. Okay, aan ku bilaawno central nervous system habdhiska dareenwadka ee bartamaha marka. The central nervous system habdhiska dareenwadka ee bartamaha consists of wuxuu ka kooban yahay the brain maskaxda and spinal cord iyo xangulaha. These essential structures kuwaas waxaa lagu yiri waa qaab dhismeedyo muhiim ah ay both well protected waxaana labadooda wada jira difaaca from damage waxyeelada ka difaaca and injury iyo dhaawaca ayay ka difaaca waxa lagu magacaabo. The brain maskaxda is enclosed waxaa daboola within the skull lafta madaxa ayaa daboosha and spinal cord xangulahana asin waxaa daboola by the vertebrates laf dhabarta ayaa daboosho difaacda. That form kuwaas oo sameeyo waxaa la yiraahdo maxay sameeyaan the spinal column godka laf dhabarta ayay sameeyaan marka. Okay, membranes waxaa yiri membranes xubno badan ayaa covering waxay daboolaan ayaa coverings daboola. Nawnaas waxaa loo yaqaanaa meninges ayaa loo yaqaanaa oo ah xubka dahaara waxa lagu magacaabo xangulaha iyo maskaxda marka. That provide kuwaas oo bixiya further protection difaac dheeraad ah ayay bixiyaa marka. The meninges waxaa yiri xubka of the brain maskaxda and spinal cord iyo xangulaha are completely surrounded waxaa si dhameystiran ugu dahaaran ama ugu hareeraysan by 3 layers saddex lakab of tissue nada ka samaysan. The meninges waxaa yiri xubka named waa la magacaabaa from outside ayaa laga soo bilaabayo banaanka inward hore loo soo ilaa gudaha gadaal banaanka laga soo bilaabo magacaabitaan mar la soo magacaabo kan ugu sareeya la soo magacaaba kan ku xiga iyo kan ugu dambeeya saas ayaa la soo magacaaba. And they are waxay leeyihiin neuromata ah xubka ugu sareeya maskaxda iyo xangulaha ariga neuromata ah waxaa lagu magacaabo space-ka u dhaxeeya neuromata iyo biomata. Biomata waxaa yiraahdaa waa xubka ugu hooseeya maskaxda iyo xangulaha marka. Neuromata ariga neuromata iyo biomata marka. The central nervous system habdhiska dareenwadka consists of wuxuu ka kooban yahay the brain maskaxda and spinal cord iyo xangulaha. Okay, these essential structures kuwaas waa qaab dhismeedyo muhiim ah both well protected kuwaas oo waxaa yiri si weyn ama labadooda u difaaca from damage waxayna ka ilaaliyaan waxa lagu magacaabo waxyeelada and injury iyo dhaawaca. The brain maskaxda is enclosed waxaa daboola within the skull lafta madaxa ayaa daboosha. Maskaxdu waxay ku jirtaa madaxa Soomaaliya lafaha madaxa ayaa daboola ama ayaa hareereeya. Okay, and spinal cord xangulahana by vertebrates laf dhabarta ayaa daboosha ama ku hareeraysan. That form kuwaas oo sameeya spinal column godka loo yaqaano xangulaha.
the membranes waxay recovering xuubab badan ayaa daboola nouns kuwaas oo loo yaqaano meninges xuubabka loo yaqaano maskaxda they provide ama that provide kuwaas oo bixiya further protection difaac cirada ayay bixiyaan the meninges xuubabka haye the brain maskaxda and spinal cord xangulaha are completely surrounded si weyn ama si dhammaystiran ayay u wada daboolaan ama u wada hareeraysan by 3 layers tissue saddex noodal kabeed ayuu ka samaysan the meninges xuubabka named from wala soo magacaaba outside banaanka in way gudaha ayaa loo soo magacaaba they are waxay leeyihiin marka diuromata oo ah lakabka ugu sareeya arachneuromata oo ah lakabka dhexe iyo biomata oo ah lakabka ugu hooseeya marka aan qeexna mid kasta marka waa yahay number 1 diuromata maxaa lagu waa is a tough outer membrane waa xuubka adag ee ugu sareeya covering kaasoo daboola the brain maskaxda and spinal cord iyo xangulaha of the vertebrates ee lafdhabarida it is composed of wuxuu ka kooban yahay connective tissue nudayaal waxa isku xira and reach waxaana ka buuxa network of capillaries shabakad tiiftaafyo ah oo xididada dhiigga ayaana ka buuxa okay number 2 biomata is a innermost membrane waa xuubka ugu hooseeya ayaa lagu yiri covering kaasoo daboola the brain maskaxda and spinal cord iyo xangulaha it bosses waxay leedahay many blood capillaries xididada dhiigga ee tiiftaafyaha aad u badan ayay leedahay and lymph vessels iyo dhuumooyinka qaada dareeraha cad ee jirka uu leeyahay number 3 arachneuromata asin maxaa lagu waa a layer of fibrous tissue waa lakab ka samaysan nuda khafiif ama nudo jilcan that lays kaasoo yaala between inta u dhaxaysa the dura and biomata iyo diuromata ayuu u dhaxeeyaa marka that is a narrow space waana waa space ciriiri ah ama waa meel ciriiri ah between u dhaxaysa the dura and biomata lakabka sare iyo lakabka hoose ayuu u dhaxeeyaa it's filled with waxaana ka buuxa cerebrospinal fluid dheecaanka loo yaqaano cerebrospinal fluid from which kaasoo waxay oxygen and nutrients kaasoo nafaqada iyo oxygeenta diffuse u duusiya ama u riixa into brain cells unugyada maskaxda marka and protect wuxuuna difaacaa the brain maskaxda and spinal cord iyo xangulaha aan ku celino lakabada maskaxda dabool waa 3 oo kala ah number 1 diuromata oo lakabka sare ah biomata oo ah lakabka hoose iyo arachneuromata oo ah lakabka ugu dambeeya ama lakabka u dhaxeeya lakabka sare iyo lakabka hoose ama lakabka dhexe okay diuromata maxaa lagu waa is a tough outer membrane covering the brain and spinal cord of the vertebrates waa lakabka adag waxaa lagu ugu sareeya daboola maskaxda iyo xangulaha daboola ee lafdhabarida ee leedahay marka kana maxaa lagu marka biomata waa is a innermost membrane waa xuubka ugu hooseeya kaasoo daboola maskaxda iyo waxa lagu magacaabaa xangulka intaas ku qeexi kartaa marka okay arachneuromata maxaa lagu waa is a layer of fibrous tissue lays between ta u dhaxaysa dura and biomata waa dhihi kartaa waxa kale oo qeexi kartaa oo dhihi kartaa arachneuromata is a narrow space between the diuromata and biomata okay arachneuromata waxa ku jira lagu cerebrospinal fluid dheecaan loo yaqaan dheecaanka marka muxuu qaabilsan yahay dheecaanka wuxuu oxygeenta iyo nafaqada uu siiyaa waxa lagu magacaabo unugyada maskaxda ayuu siiyaa marka wuxuuna difaaca waxa lagu magacaabo xangulaha iyo maskaxda ayuu difaaca marka brain maskaxda aan ku bilaabay marka the brain maskaxda is one of the most important organ waa mid kamid ah xubnaha ugu muhiimsan human body jirka bini'aadamka marka la joogo waa xubnaha ugu muhiimsan ayay ku jirtaa marka waxa lagu magacaabo brainka marka okay waana xubnaha ugu muhiimsan qaasatan waa xubinta ugu muhiimsan sida iyada oo brainka ah iyo waxa lagu magacaabo liver oo beerka ah waa xubnaha ugu muhiimsan marka okay and it consists of waxay ka kooban tahay about 100 billion of neurons waxay ka kooban tahay 100 billion oo neuron ugu dareen 100 gaaray ayay ka kooban tahay is occupy most of the space waxayna buuxisaa space-ka ugu badan ama ugu balaaran of the skull ee madax marka and this mass waxa risk in a human adult qofka bini'aadamka ee qaangaarka ah is about waa mid gaaraya 1.4 kilogram culayskiisa marka la fiiriyo qofka bini'aadamka qaangaarka ah wuxuu gaarayaa 1.4 kilogram ayuu gaarayaa okay and consume waxayna isticmaashaa about 20% boqolkiiba 20 of the oxygen that reaches the body taas soo gaar jirka oxygen soo gaar jirka boqolkiiba 20 waxa isticmaashaa maskaxda ayaa isticmaasha glucose sokorta
is the one is the only food waa cunada kaliya of the brain cells ee quutaan unugyada maskaxda glucose waa cunada kaliya ee quutaan waxa lagu magacaabo unugyada maskaxda ay leedahay. Okay, the brain maskaxda waxa la yiri consists of ka kooban tahay of the illustrated in figure 1.9 si lagu soo khulaasiyay oo arki doona insha Allah taala parts qayb of the brain maskaxda. The brain maxaa la yiri maskaxda consists of ka kooban tahay four major parts afar qayb waaweyn which are kuwaas oo maceen the cerebrum oo ah maskaxda qaybteeda hore, the mesophallus oo ah waxa lagu magacaabo maskaxda qaybta dhexe, brain stem oo ah teedka maskaxda iyo cerebrum oo ah maskaxda qaybta dambe. Afartaas qayb ayaa loo qaybiyaa marka. Mesophallus maskaxda dhexe waxa ku jira thalamus iyo hypothalamus. Brain stem waxa mid brain maskaxda dhexe, bones iyo medulla oblongata ayaa loo yaqaanaa brain stem. Cerebrumna waa maskaxda qaybta dambe ayaa loo yaqaanaa oo loo yaqaano maqiiq. Soomaalidu waxay tiraahdaa maqiiq. Okay, waatana maskaxda qaybta ugu horeysa waxa la yiraahdaa cerebrum. Waa intaan aad arkaysid ayaa waxa loo yaqaanaa cerebrum. Okay, mesophallus maxay tahay waa qaybtan buluuga ah ayaa loo yaqaanaa waa thalamus iyo hypothalamus ayaa ku jira. Okay, cerebrum maxay tahay waa tan qaybta ugu dambaysa maskaxda ayaa loo yaqaanaa cerebrum. Brain stem waxa weeye waa kuwan waa boneska iyo medulla oblongata ayaa loo yaqaanaa marka. Afartaas qayb ayaa maskaxda loo qaybiyo kala ah cerebrum maskaxda qaybta hore, mesophallus qaybta dhexe, haye brain waxa lagu magacaabo cerebrum maskaxda qaybta dambe iyo brain stem ayaa loo qaybiyo marka. Thank you for watching. هذا ومسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي بانها يو وبحري ودن كانها يو وحان ورديا دكسي ذو